tababarkan oo soconaya muddo hal maalin ayaa waxaa daadihineysay wasaaradda kalluumeysiga iyadoo ay maalgelinayso midowga Yurub oo soo marisay Oxfam fulintiisana waxa iska leh hay'adda Kalo waxaana si wada jir uga faa'iideysanayay shirkadaha kalluumeysiga Puntland iskaashatada kalluumeysiga wasaaradda kalluumeysiga Puntland rugta ganacsiga wasaaradda ganacsiga Puntland macadka badmaaxidda kalluumeysiga Soomaaliyeed ee Smafis ujeedadiisuna waxay ahayd kor u qaadida tayada shirkadaha kalluumeysiga Puntland محمد محمود قلحية oo maamulaha mashruuca kana socda hay'adda Kalo ayaa ka warbixiyay tababarkan barnaamijkan waxa way aad u weyn wax badan ba meel kasta la tagay oo ilaa xeebaha la maray si kasta ma taqaan ha noqotay wali farqi ma qodna waxa weeye waad ogtihiin waxa weeye kalluumaysigeenu hadda maanta sidoo yahay waxa weeye waxa qabaan naga ah ama Iiraan ha noqoto ama Yemen ha noqoto ama Sacuudi ha noqdo ama Imaaraadka ha noqdo dadkaas inuu qabaana oo micnihii kalluunka iyo khayraadka halka ku jira iyaga ma taqaanaa iyaga sheegto oo micnihii magacyadooda lagu diraa marka si hadaba loo gaaro anagu inaanu dirno oo aan dirsan anagu waa in aynu ma taqaanaa hadii aalidmo waxa hadda la sheegi doono insha Allah taala iyo waxaanu soo sheegnayba oo aynu gaaro in aynu kalluunkii halka ka dirno anagu bacaysanay oo kartoomaysanay oo magacii Puntland ku yaalo magacii Soomaaliya ku yaalo inuu halka ka dirno waxaan rajaynayaa insha Allah taala maanta maadaama taqaanaa waqtiga nagu yar yahay bal inaynu wax ka qaadano waxa ay soo jeedin doonaan saraakiisha ka joogta محمد سعيد بلاغ agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda kalluumeysiga ayaa soo afmeeray tababarka mashruuca tababarkan waxa uu ku saabsan yahay wacyigelinta quality control-ka iyo licensing suu standard u noqdo quality control suu standard u noqdo in lagu wacyigeliyo stakeholders-ka weeyaan tababarkan qorshihiisu iyo ujeedada ka dambaysa waxa qabanaya jooga Kalo waa one day oo maanta uu weeyay tababarkaasi maxamuud jamaal maxamuud dooxo telefishinka Home Cable magaalada Boosaaso